meelun waliba maqaayada Badar ee magaalada Baydhabo markii la maaday kooxda Maleeshiyada Al-Shabaab weerar qaadan meelaasi oo dad shacab ah ka dhimadeen maqaayadii hotelka Bilan oo qaraxyadii ismiidaaminta 18 Oktoobar ee ku dheen haatana waybuwa haana ridin sawla ka bilaaway waliba sooday howl maalmeedkii shaqada magaalada shaqaale iyo maamulka maqaayada Badar iyo marlamada ridin dhisahay maqaayada oo kooxda Maleeshiyada Al-Shabaab oo marwalba aadaysay intii deedyan dhiiga shacabka Soomaaliyeed oo walban galabsana oo ka shahayo galbihii maqaayada magaalada mid ka mid ah shaqaalihii ku badbaaday qaraxii maqaayada Badar oo xilligaasi howl maalmeedkii shaqadiisa guda jaray iyo waliba uu TV koonfur galbeed uu sheegay intii Ilaahay ku badbaadi dhibaatadii la damacsanaayeen kooxda khawaarijinta Al-Shabaab هذا كل شيء مقيد البدر ودفعي ما لين بدبادي ياجي لنا ما دفعيه تنقوا دي تنقوا ما دفعنا تنقروي لا ما لا المشكلة ولا hotelkii Bilan iyo maqaayadii Badar iyo waliba ateen haan ridin soo la ka bilaabay Badar iyo maamul ay shaqaalaha waliba in haano ka dhirin in isla marahaantaasi howl maalmeedkii iyo reedaha nagada doona Faisal Dawson KJS TV Baydhabo